kulanti waxaan u haboon idaantii meel kasta naga daawanaysaa ku soo dhawaada barnaamijkeena Maaweelada Caruurta aad ka daawataan shaashada telefishinka caalamiga ee Somali TV xaruntiisa dhaco ku leeyahay magaalada Burco caruuray waxa barnaamijkeena Maaweelada Caruurta nala socodsiin anigoo ah Xamsaan Cali caruuray xubinteena ugu horeysa barnaamijkeena Maaweelada Caruurta waxa weeyaan shan dushi ka soo laabano xubinteeni koowaad xubinta labaadna tahay tumejeeri Systems go on our end. All systems go here as well. We are ready to jettison first stage of rocket on your command, Commander. I love this part. You are clear to jettison initial stage.
I'll take that. Come on, let's go. Thomas, the cats took Jerry. Poor Thomas. Are you okay? Well, if it ain't the ship of me no-good brother, Red Pirate Ron. So, you're saying he found a treasure map, are you? Oh, well then, let's pay him our traditional family visit, says I, huh? Oh, that should keep the mast from falling over again. haddaan caruurey xubinteeni labaad halkaasi kaga soo laabano ku soo dhawaada xubinteena saddexaad ee Faadimo Timadahabli. duurka markii ay yimaadeen ayay la hadleen waxaana yiraahdeen weynan ogaanaa waxa mid kasto inaga mid oo qarsoon ramla ayaa lagu bilaabay maxay tahay mucjisada gaarka aad leedahay markaasay tiri waxaan la hadli karaa anigu xayawaanka dhan waana fahmi karaa dhamaantood arintan ayaa mucjiso ay leedahay ramli markii barkooda Timadahabli ayaa tiri alla waa wax fiican marka waxaad la hadli kartaa mastuulaaga dhasha ee aanu haysano ma mastuula dhaala ayaa haysataan ay ku wada yiraahdeen markaliya intay yaabeen waxaana soo baxay mastuulaagii oo soconaya ramla ayuu yimi wuxuu ku yiri miyaad fahmi kartaa ramlana waxay ku tiri waan ku fahmi karaa magacayguna waa ramle ee barasho wanaagsan iyaguna markaliya ay ku wada farxeen oo yiraahdeen waa mucjiso runtii naga farxisay laakiin Rayaan ayaa hadda la gaaray Rayaan waxay tiri anigu waxaan leeyahay mucjiso wixii taagan oo dhan inaan dhaqaajin karo dhir dad iyo noole dhagxaanta xataa indhaha intii isku qabatay ayaa leer ka baxay gacmaheeda waxayna markaliya kor u wada qaaday boqoradihii waa mucjiso u gaar oo boqorada Rayaan oo badda hoosteeda ku nool ay leedahay balse markii dhulka istaagtay waxa dhacday ramla oo dawaqday isna xijin kari weeday waxayna ka dhaawacday lugta dusheeda oo nabar culus ka soo gaaray way damqatay waxaase u timi boqorada ayaan oo iyada aynu ku naqaano sheekooyinkeena intii labada gacmood isa saartay oo ay qabatay ayaa gacmaheeda leer ka baxeen waxayna ku haysay nabarkii bas markaliya ayaa nabarkii baabay waxayna tiri alla waan bogsaday waan socon karaa hadda waan istaagi karaa ayaana waxay tiri mucjisadaan anigu leeyahay waxa weeye nabarada ayaan bogsiin karaa hadda waxa la soo gaaray mucjisada rooda Timadahabli intay wax akhriday ayay timaheedii barakaysna la hadashay hawada sare ayay tageen waxayna bixiyeen 4 caruurta halkaasi kaga soo laabano xubinteeni saddexaad xubinteena ugu dambaysan ay tahay Oscar halkaasi caruurey waxaan ugu soo dhamaaday barnaamijkeeni Maaweelada caruurta ka daawataan telefishinka caalamiga ee Somali TV xaruntiisa dhexe ku leeyahay magaalada Barnaamijka
intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doonaa